safiirada dawladda Jarmalka ee Soomaaliya Jutta Farash madax ka tirsan qaramada midoobay oo maanta soo gaaray magaalada Baydhabo waxay ka qayb galeen munaasabad in ka badan 30 dhalinyaro ah oo horey uga tirsanayeen Al-Shabaab muddo 6 biloodna magaalada Baydhabo dhaqan loogu sameynayay waxaana sidoo kale munaasabada ka qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyay wasiirka dhaqan-celinta hubka dhageysta maamulka Koonfur Galbeed iyo qaybaha bulshada ee kala duwan safiirka dawladda Jarmalka ee Soomaaliya iyo wakiilka Unsom Baydhabo waxay kaga hadleen muhiimadda ay leedahay in tababar loo soo xiro dhalinyaro ka soo goosatay Al-Shabaab ayna sii joogteen doonaan. I wish to wish you a very good perspective now in that you have learned many skills and that you can make good use of them and that you can really build up a good perspective for your life. Somalia at the moment is at a very important crossroad at its future. With the support of Somalia's international partners and the Southwest State, this goal has been realized. And I would like to acknowledge here, in particular, the presence of the German ambassador and the head of the Africa division. wasiirka hubka dhageysta dhaqan-celinta iyo tababarada maleeshiyaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu u mahadceliyay safaarada dawladda Jarmalka wuxuuna sidoo kale baaq u jeediyay dhalinta Al-Shabaab ka barbar dagaalama محمود تيمعدة تلفزيون كصومالي نيوز بيدبو